يا جماعة سنتين دماغ سلام يا بهذا راديو سهل يو شعب سوماليات كارهان شعب بنتلان وحن آد فرح سنة هاي إن قدامين وسيرة هي لصوم العابي وسيرة هي أسباق وهي الذي وسيرة دورياشي أرنتا وقن أركتبه إذا كساب سن maamulka cusub iyo golaha wasiirada waxaan aad ugu hambalyeynaya wasiirada cusub iyo kuwii hore u shaqeeyay iyagana wasaaradaha loo magacaabay laakiin awal ka shaqeynayay xukuumadda dhexdeeda isbedel xoogaa aan fara badnayn ayaa socda wasaaradaha qaar dad cusub ayaa la keenay oo aan isleeyahay maamulka si fiican bay uga qabanayaan sidoo kale waxaa jira wasaaradaha qaar cadaadiskii kanaysa beelaha uu ka dhex muuqday inay ku guulaysteen shakhsiyaad u arka inay yihiin stakeholders ka yihiin ama siyaasadda wax ku leeyihiin laakiin aan lagu soo qorin xirfadooda iyo waayo-aragnimadooda labadaba way jiraan waxaan rajaynaynaa dhammaantood inay si fiican u shaqeeyaan bulshada si fiican ugu shaqeeyaan waa tahay wixii wax ka dhiman yihiin ay wax saxaan si wanaagsan sidoo kale in wasiiradu ay si fiican u helaan tiim cusub ama tiimkii hore ay si fiican dib u habeen ugu sameeyaan ay kormeer ku sameeyaan shaqooyinka iyo habsami socodka shaqooyinka waxyaalahaas oo dhan ayaan rajaynaynaa shaqo badan baa u taalla wasiirada waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay u fududeeyo bulshadeennana ay baraara ku noolaato waa tahay xukuumadda cusub ee Puntland waxaa ku dhex jira mas'uuliyiin hore uga soo tirsanaa xukuumadihii hore ee Puntland waxaa sidoo kale ku jira mas'uuliyiin cusub oo haatan saaxadda siyaasadda ku soo biiray maxaa laga fikiraa xukuumaddan cusub ee uu dani soo magacaabay wallahi filitaanka ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaanu ka filaynaa wanaag iyo horumar iyo wada shaqayn iyo inaanay ka gaabin intii hore oo xukuumadihii hore ay qabteen iyo waxqabadkoodii waxaa la doonayaa inay ka badiyaan oo horumariyaan habsami socodkii shaqooyinka filashada ugu muhiimsan waxa weeyaan in nidaamka haddii aan isbedel badan laga samayn hay-adaha dhexdooda iyo sida shaqada u socoto haddaan isbedel laga samayn runta markaan sheegno isbedel badan ma imanayo isbedelku ku yimaadaa system iyo nidaam kuma imanayo shakhsiyaad lasoo magacaabo qofkii hore u joogay iyo qofka imanaya labadooduba khibradda iyo aqoonta ku kala duwanaadeen laakiin taageerada ama shaqooyinka ay ku soconayaan waxay noqonayaan nidaamka marka in la derdergeliyo hawlihii hore la sameeyo tub cusub ama tubihii hore wax laga bedelo in shaqaalaha si fiican loo shanleeyo oo qaarkooda shaqooyinka si fiican oo sida fiican hagarlida uga baxa si fiican loo dhiirigeliyo kuwa shaqooyinka ku dhex dhuunta oo ragaadiya nidaamka dowladnimadana iyagana si fiican loo kormeero ama laga bedelo meelaha ay joogaan marka shaqo badan oo gudaha ah ayaa jirta oo aan ka filayno in xukuumadda cusub ay qabato haddii aanay qaban marka nidaamku waa iska sidii hore isaga jiitamayaa waxaa keliya rajada laga qabaa waa nidaam cusub laakiin shakhsiyaadka lasoo magacaabay iyagoo kartidooda iyo wanaagooda leh misna wax badan isbedeli maayaan haddaan nidaamka wax laga bedelin waa tahay xukuumaddii hore ee Puntland ee uu hogaaminayay madaxweyne Gaas maxay ahaayeen caqabadihii hortaagnaa oo ay tahay in xukuumaddan cusub ay cashar ka barato si ay uga gudubto caqabadahaas hortaagnaa xukuumaddii hore wallahi caqabaduhu aad bay u badnaayeen waxaan aaminsanahay dhammaan hay-adaha dowladda waxaa jiray caqabado waxaa jiray caqabado bulsho waxaa jiray kuwa siyaasadeed waxaa jiray kuwa amni waxaa jiray kuwa dhinaca cadaaladda caqabadaha aan leeyahay waa ugu waaweyn waxa weeyaan in nidaamka dowladnimada aan wax badan horumar ka samayno xukuumaddii hore waxaa muuqatay inaan hay-adaha oo si fiican dowladda u toosiya aanay si fiican u shaqaynayn sida hanta dhowrka sida hay-adda la dagaalanka suuqa hay-adahaas inaanay active ahayn oo si wanaagsan u shaqaynayn baa muuqatay caqabadaas waa caqabad dhinaca musuqa golboloola u ah marka caqabad weyn bay ahayd mana aaminsanay inay xukuumaddii hore ka gudubtay tani waa inay ka gudubto tan ka muhiimsan waxa weeyaan oo qodobka labaadi waa amniga oo la aaminsan yahay in xukuumaddii hore ay dadaashay laakiin aan waxqabad badani jirin weliba sanadkii ugu dambeeyey ay sii xumaadeen amniga gobolka bari oo kale waxyaalahaas waa caqabad dhinaca amniga